mukhtaar roobo wuxuu ahaa hogaamiye jihaadi ah oo ku jira xarakatu shabaab oo ka soo goostay wuxuu yimiday Soomaaliya wuxuu yimid caasimadii wuxuu yiri waa ka baxay fikirkiina waa ka soo laabay inuu qaldan yahayna waan gartay inta abu noo sheegay maantana wuxuu isku sharaxay inuu madaxweyne ka noqdo gobol kamid ah gobolada dowlad hoosaadka Soomaaliya ama federaalka inuu meel ka noqdo madax buu isku diyaariyay ajiib weeyaan anigu markaa su'aal baan isweydiiyay waxaan isweydiiyay jid wuxuu sitay ninkaasi harig magaciisa la yiraahdo shabaab wuxuu aaminsanaa dowlad diiniya in Soomaaliya laga dhiso wuxuu aaminsanaa in la dagaalamo Ethiopia in la dagaalamo Kenya in la dagaalamo ciidanka Djibouti in la dagaalamo Soomaaliya in la dagaalamo waxa aan ahayn oo dhan wadaad in la laayo waxaan isaga fiirsan in la laayo sidoo durba u noqday nin sifiga madani ah dimuqraad ah u tartamaya dowlad halkuu ka soo koray diyaaradda kale كيف تحول قرمو مراجعة سمية فكرية بوجوك قري هالكوك هاللي وشاقي دباتة ومد أوجيست قربا لقى سامحي هالكي لقى سامحي كون دوب ساعة كأوتوميا محي أوتوميا وحاني سويديي قف كان سياسي الصومالي وقف جربة وقف بكاء هرتا مركو هوري تاريخ دادي هور كعذر دارو مدوبيد بيلك أهيد إذا كان لينيسي إجرام كأهيد كعذر دارو لابو تاريخ نبرة كعدو ذاتid shacbigii aad ka dishay dadka ha ku saamaxaan hadii ku saamaxayaan saddex waxa laga qabto cuqubadaadi qaado dambigan aad gashay hal lagu ciqaabo adduunka lagu ciqaabo qabla al-aakhira afar umadu ha ku saamaxdo kadib hal lagu sameeyo rehabilitation hal lagu ogolaado inaad u diyaar noqon kartid inaad nolosha gali kartid laakiin huna ila huna aqsa al-yamin midii tafog إلا بدء فوق أو إسكت يسدون وحوين عجيب وين مختار روبو سوى قرعة معه ولو بسي هري وما رتر كاين تلاقى صباح مدحوين على النقي عقلي قفك عجيب والفكرة دتك بني آدمك مركه هراء ديمقراط هو أم بس دي جماعة الإسلامية في مصر كوي أول رسالة قال حبس قال الجريه شان إيا لبعض سنة يسميني واحد هذا مراجعة دي وآك ديبو فيرين أخرين waxay soo saareen natiijo ah inay qabtanayeen inay dambiilayaal ahaayeen inay ummadda masaarida cudurdaar weydiisteen inay waraaqad kutub qoreen boqolaal ah inay intaas oo mufakkir ay ka soo dhaxbaxeen inay xabsiga ay ku bislaadeen kadib markay soo baxeen ay dhaadeen tubna ila shacbigayga ma toobad keenay shacbigina uu aqbalay markaa bay la baxeen xisbi cusub ay sameysteen annaka waxa ma jiro waa الجبرسي قبل أن يرتد إليك ظرفك buu noqonayaa qof kale wadaad buu yahay waral yahay wadaad buu noqonayaa darkii afgaanku sitay koodhi karaafad buu xiranayaa marka harba ma hadii taxawulaat al-juduriyya isbeddelkan radikaalka ah ee qofka ku dhacaya hakada jildiga la beddelaya hakada biduun muqaddimaat waxay ku tusaysaa in aan siyaasadda u bisleen in aan nahay faashiliin inay yihiin raggaas in la iska ilaaliyo anigu markaas waxaan ka soo saaray saddex arrimood markii horeba sirdoon buu ahaa ninkaasi wuxuu matalayay bila xayaa kama xishoonayo kama cabsoonayo reeraha xataa watana kama baqayo anu qof waxaan ahay xorriyadda iska haysta halka waan iska fadhiyaa runta uma sheegay waa ninkaasi markii horeba uu shaqeynayay wuxuu u shaqeynayay reer galbeedka raba inuu islaamka suuradiisa bedilaan imikana shaqadii uu dhameeyay haddii kalmay ogolaadeen inuu taas soo galo waa kow labo arrinta labaad ee arrinta keensanaysa waa maxay markii horeytaba wuxuu u galay shabaab inuu madax noqdo uu ku gaari kari waayay wuxuu yiri meesha hadii way ka dhamaatay halkan kala tag saa madax ku noqon kartaa waa talabaad weey waa ihtimaalka saddexaad inuu yahay qof doqona oo aqli lahayn qof bila aqli ah kuwa rumaysanayana in aqli lahayn isagu waa doqon siyaasi qabiya atbaacdiisuna waa aqbiya marka intaas baan ka baxaya waa mushkila dadkeen waxay moodayaan wax yar oo dusha waxaan ka fajacay darkii buu iska soo dhigay darka uu soo xidhay mid buu isdur joojiyay sidii maartay ciidamada si madaxda reer galbeedka karaafaad iyo koorna uu soo gashay halkan buu soo gashaday hatta suwarka foolxumadu yahay isbedel baan u baahanay magaran mushkiladaasina waa arinta saddexaad u baahan qofka Soomaaliga war generation kan diinta ku ciyaaray iyo generation kan siyaasadda ku ciyaaray dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed waxaan ugu yeedhayaa inaan orano la nima rabno la nuriidukum nima doonayno مجرمين باتهين قعمينا ديق باكدايا
maskaxdiina dhiig baa ka da'aya qalbigiina dhiig baa ka da'aya qatalaad tihiin mujrimiin baa tihiin safaakuu addimaa baa tihiin dhiig baa daadinaysiin laysa ladaykum raxma naxariis ma haysaan turiiduuna an taxkumuuna ila alabad inaad weligiina xakutaan baan rabtaan annaku dimuqraadiyadda aan rabno iyo sinaanta aan rabno iyo cadaaladda aan rabno iyo diinta aan rabno waa nabadgelyo waxaan doonaynaa inaan ku noolaano nabad waxaan doonaynaa inaan cabsoon waxaan rabnaa inaan cabsoon waxaan rabnaa inaan noolaano waxaan rabnaa in ubadkayagu iskuul dhigtaan waxaan rabnaa in ubadkayagu jaamicada galaan waxaan rabnaa inaan dhakhtarre helo waxaan rabnaa jid inaan helo min kismaayo ilaa jabuuti isku xidhaya ilaa adisaaba isku xidhaya ilaa iyo eritrea isku xidhaya waxaan rabnaa warshado waxaan rabnaa nolol an naciish zay annaas sida dadka inaan u noolaano inaan masaajidu soo noqdaan baan rabnaa oo khudbadii jimcaha laga akhriyo fiicneyd oon faraxno waxaan rabnaa inaan ciidda ciidno waxaan rabnaa inaan jidadka marno waxaan rabnaa inaan cabsoon waxaan rabnaa inaan madaxweyne ka cabsoon wasiir ka cabsoon waxaan rabnaa inaan booliis ka cabsoon waxaan rabnaa inaan waraaqadda aan sito marka la weydiiyo aan idhahdo ma sito maxaa tahay in laygu oran oo laga idhahdo maxaa taqaanaa waxaan rabaa inaan beera samaysto waxaan rabaa inaan macdaara furto waxaan rabaa meeshaan doono inaan ka furto inuu qofna igu oran maxaad u furatay maxaad samaynaysaa qaanuunka inaan ilaaliyo bas laakiin inuu kii shalay idilaya maanta madaxweynean ku noqon iga idhahdo وهذا الكلام الفاشل marka ikhwaani fillah oo waliba odayaal reeraa garab fadhiistaan dhadeen waa inankayagi shalay markuu gudina waa inankaagi maanta markuu yimidina waa inankaagi ma hakada tuuradu al-ibil sida geel law saa Soomaaliya kuma soo noqon karaysa ikhwaani fillah kuma soo noqon karaysa Soomaaliya sidaas qofku hadduu toobad keenay miskiidka ha galo ha fadhiyo hal iluubay akhi 10 sano 20 sano kadib ha ku soo noqon doono hal xisaabo ayna maxkamadda xisaabisay وبروبلم وحسوية أرنتاسي ومهم أرنتا شنات إن ستاجين وحوي إخواني في الله waxaad ogtihiin oo ka dhacday maaragtay Soomaaliya xaalad aad u qurux badan